وإياكم جزاكم الله خير. السلام. وهاك شيخ محمد شيخ طيب هذا الذي سي waxa kaaga baxay intaan u gudbinin sheekh maxamed umar baa noo haray interviewgiisa qayb kamid ah deeq daraja noo haray waxa kale oo aanu haynaa wasiirka warfaafinta ee Puntland waraysi aanu la yeelano arintan ku wajahan maxamuud caydiid baan insha Allah taala asagana waraysi kaga haynaa sheekh maxamed marka qaar waxa maqashaa xukuumta dawladda cusub oo oranaysa ama dawladdii ka horeysay dalkii baanu xoreynaa marka la yiraahdo dalkan xoreynaa inta badan dagaalo laba wadan u dhaxeeya bay sawir ay bixinaysaa wiilka ku dhashay degmada Hodan ama Howlwadaag ama Daynile seen dhulkiisa looga xoreynaya alfaada horta iyaga adeegsada oo iyaga fiican in la weydiiyo maadaama meesha dagaal uu ka ogan yahay qof walbi waxa weeye dadka muslimiinta ay isku jihaadaya wala isku jihaadaya xaqiiqatan dagaalka dadka muslimiinta dhex mara jihaad ma noqdo lamana yiraahdo jihaad dad muslimiin ah dagaalka dhex mara qitaal buu noqdaa mararka qaarkood sharciya qitaal banaan dagaal banaan laakiin ma noqdo jihaadkii macruufka ahaa jihaadku waxa weeye in gaalo lagu jihaado qitaal alkufaari liiclaa'i kalimati illaahi wey tacriifkiisa culimmadu saasay u tacriifiyaan waana waxyaalaha dee ay naga gashay dhibaatadu inaga gashay in muslimiintu isku jihaadaan midda labaad sheekha hadalkiisii siduu u tilmaamay waxa weeye hadda arrinkan dhalinyaradu ay yidhaahaan wadankii ajnabi baa jooga jihaad baana lagu jiraa ciidamadan ajnabiga aniga waxaan leeyahay umurtu waa kala horeysaa horta idinku ka daaya xabadda dadka soomaaliyeed hadda xabadda dadka soomaaliyeed oo kula jihaadi lahaa ka dayso dhammaanteen inagoo wada jirna baynu marka kuwan odhanaynaa iska taga taas waa dhinaca sharciga ah oo ma banaana in docfaruur keligaa adigu aada tiraahdo dagaalka aniga keligay baa iska leh waxaan xataa ognahay iska dhaaf xataa dowlad iyo shacabe xarakatu shabaab xisbulislaam oo la garab dagaalamayay ayay tiri hubka dhiga ama nagu soo biira dayib aniguba dagaalkii baan idinkula jiraa maya ama nagu soo biir ama waa ku baabi'inaynaa ama idin dilaynaa meelo badan bay ka dhacday si kastaba ha ahaato ama si kastaba ha ku banaysto anigu waxaan leeyahay naseexa ahaan arrinkaasu arrin saxa maaha in la xujaysto xagga caqligana 10 kun waa ciidanka jooga ama 15 kun ama 12 kun ciidamadan ajnabiga ah ee jaabada ah ee dawladahan inay iyagu isku ilaashadaan iyaguna masaalix mushaharooyin inay dalkeena ku qaataan iyo magac inay ku qaataan u yimi طيب shacabka Soomaalidu 15 milyan way hadduu israaco ciidamada ajnabi ma joogi karaan oo 10 kun ama 20 kun ama 100 kun midda saddexaad dawladii hadday jirto maxaa u diidan tahay in dawladii jirto oo aynu ka wada hadalno dawlad Soomaaliyeed horta inaynu dhisan sababtoo ah dawlad qawiya oo aynu u dhannahay inagoo dhami shabaab iyo dawladii aynu u dhannahay waa haddii de nimankan arrinta caqli ku miisaamayaan iyo sharci de markaas ayaynu iska dhicin karnaa cadow daliilna waxa oo ah weligeed dawladda Soomaaliya intii xor ahayd ma shabaab baa xukumay ma jamaaca islaamiya xukuntay Soomaaliya dawladda 1964 markii ay ciidamada Ethiopia soo tallaabeen xuduudda Soomaaliya ma shabaab baa joogay ma jamaaca islaamiya joogtay dalka difaaciisay ya dalka Soomaaliya difaacay soo ummadda Soomaaliyeed ma difaacani soo dawladeedu ma difaacani 64 soo dagaal inaga Ethiopia nagama dhexdhe mar labaad soo 77 inagama dhexdhicin soo Soomaaliya ma fogeynin oo shibir taa ka kamid ah dhulkeeda inaan lagu soo tallaabin ma yanahayn maxaa sabab u ahaa dadkan waa shacab muslima dawladna waa leeyahay marka shabaab caqabad buu ku yahay diidmadiisu caqabad bay ku tahay nabadda uu diidan yahay wada hadalka uu diidan yahay isagaa sababta koowaad u ah in ciidamada ajnabiga joogaan dhulka hadday iyagu xabadda ka joojiyaan dadka Soomaaliyeed oo la hadlaan ciidamada ajnabiga waa baxayaan taas marka waa arrin sharci waa arrin caqliya waa arrin taariikh ah maaha arrin la isku diidi karo marka taasoo dadka sababta u badan ay u xujeystaan dagaalka maxaa loo soo galay maxaan dagaal kula galaa dagaalkii baad soo kordhinaysaa oo dalkii baad u loogaysaa oo sabab waxaad u noqonaysaa aniga dhulkaygii nin Ugandese inuu 1500 oo mushahara ku qaato askarigii Soomaaliga ana 300 aanu heli karin adana u loogaya ayaga u sababa ada u sababa
marka waxaa leedahay haddaan si sax kuu fahmay haddii al-shabaab berita subax ay inta hubka dhigaan ay yidhaahdaan xataa haddaysan soo dhiibin annagu dadkeena la dagaalami mayno xabad dambana ma rabno dhibaatadan iyo ciidamadan dalkeena kusoo qulqulaya way yaraan lahayn ciidankeenuna waa xoogsanay ha soomaaliya oo dhan bay ka dhexaysaa taladeedu sax wey anigu ma qabo iyaga keligood in dembi gaara u raacayo soomaali baa loo haystaa soomaalina dalkeeda way xoreysan kartaa wayna iska dhicin kartaa amrinkuna waa shuuraa bayna almuslimiin qolo keliya iskama laha kumana tasarufi karto waajib aan inaga ina saarnayn dadka soomaaliyeed oo dhan saarnaynna iyaga keligood ma saarna marka waxa weye waa in uu qofku ogolaado dadka walaalihiisoo muslimiinta ah inuu wax la wadaago taladana ay la leeyihiin maslaxad midda kaleeto yaa akhi fiiri ilaa maalintii hadda ciidamada etoobiya maxaan kuu sheegaayay hadda kuwan amisom la yidhaahdo maalintii shabaabka iyo xisbulislaam ay xamar ka bilaabeen dowladdii hadda tan ka horeysay 4,000 bay ahaayeen ciidamada jooga 3,000 bay ahaayeen taqriiban 3,000 bay ahaayeen dagaalka markay bilaabeen xujo waxaa loo samaystay in kuwa ka badan ay yimaadaan oo kuwa ka badan ay yimaadaan oo kuwa ka badan soo galaan oo kuwa ka badan soo galaan marka adigu ma waxbaad soo kordhisay ma ciidamaad soo kordhisay sabab ilaa adiga sabab u noqday shareecadeena waxay aaminsan tahay oo qawaacideeda kamid ah ficilka qofka sameeya oo mubaashareeya iyo qofka sabab u noqda waa isku xukun yani anigu haddaan ku idhaahdo hebel dil adiguna aad xabadii qaadato oo ku dhifato ama anigu haddaan bastooladii kuu soo dhaweeyo adiguna aad ku dhifato isku xukun baynu nahay labadeen ma ujeedaa marka anigu haddaan sabab u noqday ficilka gaala inay soo gasho ama xujo ka dhigato cudurdaar bay rabtay cudurdaarkii anaa u sameeyey marka taas waxaan leenahay horta xujo maaha arrimo badan ayaa waxay laaziminayaan in dib la isugu noqdo kow waxaa ka ah dadka muslimiinta dhexdooda dagaalku waa mamnuuc nebigu alay slat slam wuxuu yihi man xamala calayna asilaax falaysa mina hadda qaacida intay ka dishay muslimiinta iyo intay gaale ka dishayna biitifaaqi الnaas jamiica intay muslim ka dishaa badan wadamada islaamka o dhan tiri jazaa'ir libiya masr soomaali yemen sacuudi meel kasta tiri inta muslim sababtooda ku dhintay oo dagaal ay ku dileen baa ka badan inta gaalo ku dhimatay afraad 100 askari 200 askari 1,000 askari halka ku dhimatay midda marka dagaal horta waa mamnuuc taas waxay keenaysaa in dadkan walaalaheen wala hadal ogolaadaanoo dadka wax la wadaagaan midda labaad waxaa keenaya in la isgaalaysiiya waa mamnuuc siduu sheekh maxamed ayib hadda sheegayay haddaan anigu idhaahdo shabaab waa qaldan yahay shareecadii ilaahayna wuu ka leexday ya anigu shareecadii ma caayen waxaan wax ka sheegay shabaab shabaab inaan wax ka sheegay macnaheedu ma aha macnaheedu inaan diintii wax ka sheegay taasna dadka qaar baa u fahmay saas iyo dhalinyarada iyo adigu diintii ma tihid adigu qof baa tahay marka isgaalaysiinta adigu ma lihid diinta shareecada iskama lihid xukun sharciya weeye arrinkaanu looma rido ilaa dad culimo ah oo ahlu cilmiya oo xujadiisi la yimaada oo cad nebigu alay slam ila wacindakum ilaa an yakuna kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan markuu yihi yani markaad ninkan xaakimka ah markay yihaahdeen ma la dirirnaa wuxuu nebigu alay slam ilaa an tarow kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan macnahedu waxa weye inaad aragtaan kufri cad oo aan lahayn shubho ku jirin hadii shayga laisku qabsanayo shubhadi baa ku jira oo qofna uu leeyahay waa gaal qofna uu leeyahay gaal ma aha qofna salaada cid isku haysata miya aragta waadax soo maaha zinadu inay xaaraanta cid isku haysata ma aragta doofaarku inu xaaran yahay cid isku haysata ma aragta xalaalu bayin walxaraamu bayin waay fi umuur mushtabihaat marka bawaaxan waa inuu yahay oo banaanka uu la yimaado kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan gaalaysiintaasna aada xujo cad u haysato wey marka qofka muslimkaana lama gaalaysiin karo taas way keenaysa waxaa keenaya sulxi bayn almuslimiin dadka muslimiinta ilahay wuxuu amraya hadday dagaal xataa ka dhex dhaco uu ka dhex dhacaa waa inay heshiiyaan qofka heshiiska diida waa qof aayaadka ilahay ku tumanaya ilahay wuxuu leeyahay wain طaafatani min almu'miniina qtataluu faaslixuu baynahuma maxaa u diidan tahay faاtaquu اllaha waaslixuu daata baynahum maxaa u diidan tahay waa aayaadka ilaahay marka afatu'minuuna bibacضi اlkitaabi watakfuruuna bibacضi aayadda ku leh wajaahiduu fi sabiili اllahi allaha ku yiri baa ku leh aslixuu bayna akhaweykum midda kaleeto midnimada muslimiinta bay kala dhantaashay arrintan shabaab liannahu adigu haddaad diidan tahay sidaad rabto mooyaane si kale inaan wax u socon
hadda muslimiinta ma midoobi karaan, midnimaduna waa in laysu tanaasulo. nebigu alay sl slam kunuu cibaad allahi ikhwaana, ummadda muslimka waxaa la rabaa inay mid noqoto oo cadowgeeda nasaaro iyo yahuud iyo mushrikiin iyo munaafiqiin ay meel uga soo wada jeesato. meel uga soo jeesadkii waxaa hortaagan nimankaana hortaagan, laysumaba keeni karo ummaddii. xabad buuna xabad ugu yahay oo hadal maaha xataa iskhilaaf ah, waa xabad. anigu saan rabo maahayna si kale ma jirto. waxaa keenaya awdaacda ummadda soomaaliyeed kama nexaysid miya. kaamka ugu weyn adduunka oo laaji'iin dhinacaagu ku yaala 100 kilomitr buu ku jira. yani shabaab markay hadda joogaan Kismaayo maamulkeeda 2 sano iyo barbixiste 200 kilomitr buu jiraa. kaamka qaxooti ugu weyn adduunka 300,000 oo Soomaaliya ku jirta oo dulli iyo saxariir ku nool, oo gabdhahooda la kufsado, oo ciriiri la geliyo, oo la gaalaysiiyo, oo qaar dhul gaalo loo qaado. dayib haddii meeshan janno aad uga dhigto ama aad uga dhigto dhul muslim oo naftooda ay ku aamini karaan, oo adeegii ka heli karaan, oo madrasadii dowlad baa tahay ileena imaara islaamiya tahay aad u samayso, sow dadkan inaad ka soo saarto ka naxdo maaha. dadka badaha ku daadanaya sow adiga inaad ka naxdo maaha. dadka dhulka saxariirka ugu dhimanaya sow dadkii muslimiinta ahaayoo aad u kacday inaad siiso nabadgelyo soo maaha. marka taasu miyaanay keeni karin inaad tiraahdo war ummadda waxaan aan ka daayo bal dadkan dhibaatada ku jira hoos Soomaaliyeed miyaadan ka damqanayn? iyaduna waa mid keeni karta inaad ka damqato oo aad arrimaha dejiso. waxaa kaloo keeni kara amniga dadkoo dhan buu u yahay. ilaahayna subxaanahu watacaala waxyaalaha nicmooyinka waaweyn buu ku tilmaamay. liilaafi qurayshin ilaafihim waa gaalo rixlata shitaa'i wa sayf falyacbuduu raba hada albeyt aladi acamahum min juucin wa aamanahum min khawf. amnigii baa diidan tahay wixii nicmadii ugu weyneyd oo ilaahay dadka siiyo maaraa lagaaga la-ay. amni baa lagaaga la-ay. Sheekh Maxamed